الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما مواطنين شعبي ميل الجوكان وسلامتهن ما أنت وحان جعلها إن arrimaha qaarkood ayaa maskaxdayda ku wareegay mowqifkeeda inaan idin sheego iyo sidaan u arko aragtidayda ay tahay inaan la wadaago. Xaaladda maanta dalka ka jirto ma aha mid laga aamusi karo. Waa xaalad ugub ah oo aan weligeed Soomaaliya intay soo jirtay dowladnimada qaadatay ayna weligeed soo marin. Weligeedna ma soo marin haddii aan ku rooyahay madaxweyne jamhuuriyadeed oo xilkii ka dhammaaday oo weli xafiiskiisii fadhiyo muddo sanad iyo dheeraad ah sanad kusii socoto ku dhowaad. weligeedna ma soo marin barlamaan Soomaali barlamaan xilligiis dhammaaday kii kale aan la dooranin muddo ilaa ka badan hal sano ku dhow 6 bilood doorasho socoto aan dhammaanayn. nama soo marin waa la yaabay in arrin hor leh waa ilaa golo wada tashi oo 6 qofood ah ama 7 qofood ah ku kooban oo ilaa September 2019 ilaa maanta socoto wax oo had hal ar laga gaarina aan jirin. waa arrin kale ugu baahidan aan soo marin. ومعيسي هيئته أو مرجعها أو كمية هي برلمانك أو كمية محكمة الدستور كمرجعها هدي واحد لسك خلافه أو واحد السوري أمرت لسك قصده كلا صار لها وأم ماشي الجرين برلمانك سيجار لون ملي أما لو ضيعت لو قعن بدهي أو إسك السعودة شروع دي دورة شذا أو لو هي شيء برلمانك قدبي أما وحي أفكار ضعيف كل شيء دول قوليدية iyo xukuumadda federaalka oo aydan laftirkeeda aan ay ku heshiiyeen aan laakiin la fulin aydan meeshii jirtaa. arrimaha hadda socdan haddaad u fiirsato waxa weeyaan dastuurkiina dibadda looga baxay oo dastuurka laguma dhex jiro. qof walba dastuur rabo u sheegtaayoo anigoo arkay qodob ilaa iska yiraahdaa waan iska socdaa. dastuurkii waa laga baxay, shuruucdii waa laga baxay, dhaqankii waa laga baxay, wada heshiisyadii la galay waa laga baxay, xishoodkii iyo sariirkiina waa laga baxay. marka intaa hadday dhammaato waxaa bilaabanaya waa yooyooytan iyo foodli isdirireys oo kale kuwa ka soo saara ku kala bixi sameeyay kuwa soo saara ku kala sameeyay. waxaas dawladnimo ma aha, nidaam dawladeedna ma aha, ma aan tii lagu dhaqmi jiray. xogaa haddaan dib idin celiyo si cibrad marata aan uga qaadano dawladda duruufii ay soo martay Soomaaliya. waxaa ka soo qaadaa 64 ayadoo doorashadii lagu jiro oo ololihii doorashooyinka u socda axzaab siyaasi ay tartamayaan ayaa xabashada dagaal lagu soo qaaday oo bareer ah oo bixis aan la kala gabanin oo kaarar maatiyaalkii xuduudka la soo galay. waa laga dooday, waa laga hadlay, dibna looma dhicin, doorasho dib uma dhicin. maxaa yiraahdaa barlamaana lama dheerin. waxaa lagu go'aansaday in dalkana la difaaco, doorashada ay socoto. saasaan lagu soo maray, dalka lagu soo gudbiyay 64. waxaa timaadaa Cabdulla Cusmaan ay laga guuleystay oo Cabdirashiid u guuleystay in uu marata xilkii ka degi asagoo aan muddadiisa dhammaan. maadaama shuruucda marka dastuurka markaa jiray doorashooyinka sharciga doorashada jiray ahayd hal bil ka hor inta xilkiisa dhamaanin in marta doorashada madaxweynaha la qabtay ahayd. waa la qabtay laakiin markii uu guuleystay Cabdirashiid uu guuleystay asagana weli xilkiisa ay ka dhiman tahay. markuu arkay in 1 July ay soo galayso wuxuu doorbiday inuu asaga istiqaalad dhiibo ka tanaasul si madaxweynaha cusub uu salaanta u qaato, xoogga dalka u qaato oo ciidamada qalabka sida uu u qaato. taasoo dhan waxay ahayd tusaale 69 haddaad fiirisaan Israel baa lagu xantaa ama lagu sheegaa in maarta doorashada ku shubasho ay sameysay. taasi waxay dhalisay in madaxweynihii la dilo, in maarta kacaan uu ka dhasho military meesha qabsado. ilaa hadda aafadii ma dhaafay, ilaa hadda ay socoto ayaan soo marnay. waxaad soo qaabtaa 2012 waxay ahayd roadmap baa lagu socday. waxaa doorashadii xilkaasi ka bixidda maxaa la dhahay kumeel gaarnimada iyo shuruudihii la dejiyo roadmapka la buuxinayo. waxaa ka mid ahaa in 6 qofood oo saxiixayaal lagu magacaabayay iyo tiim la abuuray oo doorashooyinka maamula iyo korjoogteyn oo hay'adaha caalamka ay sameynayaan ayaa la sameeyay. waxaa horseed u ahaa Sheekh Shariif iyo waxay ahayn Cabdiweli oo ra'iisul wasaare ahaa. kulligood la tartamayeen, labadaba waa laga guuleystay. waxaa meesha ku soo baxay xasan sheekh oo markaasi aan meesha sheekadaba ku jirin ayaa ku soo baxay maadaama nidaamka doorashada nidaam u dhacay. haddana soo soco 2016 imow waxaa magaciisa tartamayay
madaxweyne xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid oo ra-iisul wasaarihiis ahaa labadooda madaxweyne u tartamayeen tartankii waa la galay yani waxaa jirtay kudlad dhalatay oo musharixiinta mucaaradka ahaa oo uu ka mid ahaa madaxweyne farmaajo oo ka mid ahaa dadka mucaaradka ah oo u horseeday xafiiskay dhowr jeer igu yimid toos aniga aan u maamulay wax alla waxay weydiisteen waa la ogolaaday meeshaan ka rar shirka waa ka raran taanada gee waa la geeyey kaas ma rabno kan ma rabno controolka hala suubi inta hala sameeyo qalmaanta ha laga qaado okyaalaha laga fiisho marka yani xataa geedaha marka la codaynaya afkooda hala soo jeeday wax ayna u wadsadeen oo aan la ogolaanin ma jirto saas ay tahay waxaa xasan sheekh waa laga guulaystay si nidaam leh xilka u wareejiyey waxaana markaa kusoo baxay meesha madaxweyne farmaajo oo markaa ayaa xilkii ku guulaystay oo markaa saddexaad ka soo baxay haddase say u muuqato say ila tahay waxa weeyaan waxaa la raadinahay waxaa weeyaan madaxtooyada iyo dowladda xukuumadda aan yidhahdo madaxtooyada iyo xukuumadda federaalka waxa ay rabaan iyo dowlad goboleedyada guddoomiyaasha aan yidhaahdo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada waxa ay rabaan waa isku mid walba wuxuu rabaa xildhibaano asaga taabacsan ama iyaga taabacsan inay soo saaraan marka waa baatil iyo baatil labadaba baatil raadinayaan ma qurux badna waxaa meeshaan loo baahan yahay tanaasul in la sameeyo danta guud ee soomaaliya waa ka weyn tahay danaha gaarka ah meesha laga fiirinayo intaas waxaan u sheegayn waxa weeyaan waa cibro in laga qaato laqad kaana fii qisihim cibra yani laga cibro qaato si kastoo aa usoo dadaasho oo gacan kurimis aa usoo samayso oo xildhibaano oo taabas aa usoo saarto يعني حكم كان جغداس الله بحيا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يعني معها انك سوانا موين ارنتان الله وتعالى مش مرتا حكومه قفكي من شقوانا اكسو عي من مركا حدي انير ديك مش او كداتو اما دغر بها نقطه قف كدنتو ام wax ka noqdo مسؤولين تمان تجوجان إن آخر إلهي ورتيس أي مسؤول كيهين هلا أوجاده شعبي هلا ترو الله هلا عبسده تنازل هلا سميه أرنتان سن أيكو سعة معها هلا ميريو على واحد دي أنا مرتا تيت هذا السوق هذا لو جر أيا لقيت دورتي الشرع اللي يقول دورتي أنا مرتا حكامي وبرلمان الصومالي مرة برلمان فدرالي كوها مرة قولها شعبي كوها كتير قدام بيسي kii ugu dambeysay anigoo sharciyan lay doortay taageero haysto taageero la'aan aan ihaynin dhiiri la'aan aan ihaynin dad la'aan ay haysanin ayaa waxaa weerar igu soo qaaday maxaa la dhahay si dhaqan gaar dastuuri ay la dhaqmay haddii aan ku reeyay laanta fulinta markii aan qiyaasay arrimaha aan fiirshay danta guud markaan fiiriyey iyo sharci daradan iyadoo jirta aan u jeedno ayaa waxaa ila haboonaatay in aniga ka tanaasulo anoo raadinayo in baarlamaanka uusan milmin uusan baabi'in ama dad kooban gacantiisa u gelin anoo ilaalinayay shardiga keliya aan martaa istiqaalada ku xidhay waxay ahayd baarlamaanka oo fadhiyaan xilka ku wareejinaya ee uma wareejinaya dowlad yani xukuumadda federaalka ku wareejin maayo sidiina waa yeera ilaahay waa igu garab galay alxamdulilah xilka sidaasoo kusoo wareejiyey waxaana diidayay jawaari oo kursi isku dhijinaya ayaa hebel la daqray ama xildhibaan hebeloo la dilay ama hebel baa qof shacbi ka mid ahaa ayaa dhintay ku dhintay saas daraaddeed ayaa taasaan diidanaa alla hortiis inaan u hortagin ilaahayna waa igu soo badbaadiyey waana la yeelay marka dardaarteeda waxay tahay walaalayaalow arrintan haddii alla ku roon yahay kulligood waa la xallin karaa haddii rabitaan uu jiro waa la xallin karaa wax oo dhan مثلا waxaa ka soo qaada ayaamahan oo dhan hadda golaha tashiga waxaa laga murmaayay aan ka akhrinayay sheekay baraha bulshada aan ka akhrinayay arrimaha amniga ha lagu wareejin maayo waa laga wareejinaa waxaa la wareejinay ama aan la wareejinaynin maxay tahay dastuurka baqeexaye waa la fiirsho qodobka 99aad xarafkiisa fa ee dastuurkan oo annaka aan ogolaanay wuxuu noo sheegayaa haddii aan faqradaas keliya aan idin akhriyo يعني وحاول حلك قولها وزيرة حلك قولها وزيرة وحاكمة لكن قلنت وحرف كفاء قولك السجاشر السجار حرف كيسفاء فقرة كيسفاء عن إرادة لكن قلنت الشروع ده سجد نبت قليدة الدلكة إيو إلى أن تدنها الدولة ده وحاول حسالا قولها وزيرة سيدو كله فقرة دقاء وحديثة حلك قولها وزيرة وحاكمة مقعابد إيه حلك قادسة سراكيش السرق الدولة ده marka waxa hadda la raadinayo wax kala ma ahe
waxa weeyaan marka wayba leeyihiin nidaamkii ha lagu dhaqmo dowlad yani xukuumad yani madaxweynahana ha u dhaqmo inuu yahay madaxweyne barlamaani ah uusan ahayn madaxweyne presidential ah oo sida ka Ameerikaanka oo kale oo awoodiis ay barlamaanka la simantahay inuu dhaqmo ma aha xukuumaddana marta inay marta isdaciifisa ma aha waxa weeye xalkeed inay qabsato si dastuurka u qorayo marka yani muwaadiniinta Soomaaliyeed dhammaantood waxaan u sheegayaa qodobka 42 ee dastuurka kulligooda wuxuu yani waajib uga dhigayaa inay difaacaan dastuurka inay fahmaan qodobada ku yaal ayna difaacaan dastuurka iyo shuruucda dalka meesha ka jirto marka muwaadin u soo baxa ama u soo banaan baxa ama ka hadla tidiisa difaac oo difaacayo dastuurkana waa waajib dastuuri oo asaga leeyahay saa daraadeed waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaa yani hal laga xishoodo shacbiga hal laga cabsado Allah subhanahu wa ta'ala oo biritan la xisaabtamayo يعني باطل يا باطل ترتمى يا دل كان دن وماها يعني باطل باي وحاي حكومة الفدرال الدولة مدحتوية باطل واي وحاي رادين يعني محل هذا إلا حد لقارو قف مواطن أهو أنا كمد هاي إن ترتمى كنت حتى يمد دينه مدحوينها يسود دين أو قبل حاقون جرا مدحوينها ضد عبارة ترتمى مشرعة ترتمى محاقون جرا قبل ذاك الأساس أو كلوين وحاوين madaxweynayaashiiba oo gobolada dhahay maya hebel ma tartamay hebel kursiga loo xiray xagee ka dhacday weligeed ma dhacay hatta ku shubada insaan ma ahayn marka walaalayaal waxaad yeelaysaan xogaa laga xishooda dadka mulkigan ilaaha baa iska leh qul illahumma malik al-mulk tu'ti al-mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir si fiican loo dhuxo aayadaasi si kasto ay sunna qiiqdo wixii ilaahay ku qadari mooyee wax ka badan ma helaysid wixii alla ku diidan si kasto aad yeesho ma helaysid wixii alla ku siin cid ka cilin karto ma jirto arinta kale Allah subhanahu wa ta'ala si fiican ugu sheegay oo waadaxa waa marta aan wax mugdi ku jirin waxa weeyaan aayadan dhahayso alladina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amn humul muhtadun yani hadii marta qofka wax hogaaminaya asaga oo dulmiga wado amni ma keenayo marka amni waxa keenay dadka barata iimaankooda marta aan dulmi ku darin ayaa Allah subhanahu wa ta'ala u qadiray inuu amni siiyo marka amnigan la raadinayo waxa ka horeysa inaan dulmiga dhaafno dadka la dulminayo in la dhaafo nin walba arsaaqtiisa Allah u qoray waxaad ka hor joogsan karto male waxaad siin karto male saa daraadeed dulmiga hal la joogo dulmi wax kala ma taray adigana wuu ku dhibaya ummadana wuu tirabaya danta guudna wuu dhibaya aayadaasana u daliilaa in marata dulmi hadaad joojiso amni waa helay waliba ma aha kaliya ilaahay waa ku sii hogaaminaaba laakiin hadaad dulmi wado yani waxa weeyaan xaaladaada waa xaalad Allah ay jirto ilaa magaciisa laakiin wax oo khayr Allah laga sugayo ma jirto insha Allah khayr salaamu alaykum